bishii January 1995 Ruushku wuxuu u ballan qaaday Iiraan inuu u dhammaystirayo xarunta Peshawar ee tabarbu'eedka nuclear-ka. Waa xarun warshad nuclear ah oo laga dhaliyo korontada. Waxay dhacdaa 17 kiiloomitir koonfur bari magaalada xeebta ee Peshawar. Warshadan ayaa markii ugu horeysay bilowday inay hawl gasho sanadkii 1979 markaas oo shirkad Jarmal ah ay u dhistay xilligii boqor Shaah uu ka talinayay Iiraan. shirkaddan Jarmalka ah ayaa qiimo $6 bilyan ku dhistay warshadan. isla sanadkaasi wuxuu ahaa sanadkii kacdoonka Khomeini uu ku riday nidaamkii boqortooyada ee dalka Iiraan. weerarkii Israa'iil ee Ciraaq iyadoo uu Khomeini ka talinayo dalka Iiraan sanad iyo dhowr bilood waxa dhacday arrin bedeshay fakarkii Khomeini uu ku diidanaa in la sii wado cilmi baarista tamarta nuclear-ka. dhacdadaasi waxay ahayd dayuurado ay leeyihiin ciidanka cirka Israa'iil oo weerar ku qaaday xarun Ciraaq ay lahayd oo laga waday cilmi baarista nuclear-ka. weerarkaas oo 8 dayuuradood ay iska kaashadeen waxa uu dhacay galabnimadii ay taariikhdu ahayd 7 bishii 6 sanadkii 1981. dayuuradahan oo noocyadoodu ay kala ahaayeen F-15, F-16 waxay ku socdeen duulimaad hoose. masaafo 2,000 kiiloomitir ah ayay jareen. goor ay maqribkii tahay ayay gaareen warshaddii ay ugaarsigeeda iyo duminteeda u soo baxeen. kadib muddo 2 daqiiqadood ah ayay ku fushadeen muhiimaddii ay u soo baxeen oo waxay burburiyeen xaruntii Ciraaq ay lahayd oo ay ka waday cilmi baaridda nuclear-ka. aadamigu xitaa haddii uu khalad ku socdo goorta inta uusan ficil qaadin dejisto qorshe ku fadhiya tala lagu gowriiray waxay u badan tahay in ficilkiisu uu ka duwanaado midka bahaa'imka ee gadaal ka shaleeya. falkaasi wuxuu ku fulay saacad iyo 50 daqiiqadood. muddadaas gaaban ayay dayuuradihii Israa'iil ku kaceen kuna soo laabteen iyagoo nabad qaba. muhiimaddoodiina ay si xaraga leh u soo fushadeen. markii uu falkaasi dhacay kadib ra'iisul wasaarihii xilligaas ee Israa'iil Begin oo noolaa 1913 ilaa 1991 wuxuu qirtay in dowladdiisu ay ka dambeysay weerarka. wuxuu falkaasi ku tilmaamay mid looga hortegayay cid walba oo cadow ku ah dalkiisa ee damac ka galo inay awood nuclear dhisato. dhacdadani waxay bedeshay fadwadii hogaamiyihii kacaanka Iiraan Khamenei. isagu wuxuuna dib u fasaxay in dib loo bilaabo cilmi baaristii la xiriirtay barnaamijka nuclear-ka Iiraan kaasoo uu horay ugu joojiyey fadwo uu soo saaray. mar kale ayuu fadwo kale uu soo saaray ku sheegay inay xalaal tahay in la samaysto hubka nuclear-ka. mashruuca waxaa dardargeliyey markii Ciraaq ay hub kiimika u adeegsatay dagaalkii ay la gashay Iiraan. muddadii u dhaxaysay 1987 ilaa 1990 Iiraan waxay hiil ka heshay Shiinaha iyo Ruushka. waxaa loo tababaray injineeradii kala duwanaa oo ka shaqayn lahaa xarunta. waxaa kaloo la siiyey farsamooyin bilow ah oo aan looga maarmin warshadda nuclear-ka. bishii January 1995 Ruushku wuxuu ku dhawaaqay inuu dhammaystirayo dhismaha xarunta Peshawar. isla markaasna wuxuu oggolaaday inuu dhiso 3 falkiciye reactors oo dheeri ah. heshiiskaasi wuxuu qayb ka ahaa wadahadal qarsoodi ah oo socday muddo 3 sano ah oo u dhexeeyay labada dowladood. Maraykanka oo xogtaas helayay wuxuu mar walba dusha kala socday waxa ku soo kordhaya shaqada ka socota xarunta Peshawar. Bill Clinton oo xilligaas madaxweyne Maraykanka ka ahaa wuxuu dhibsanayay aqoonta tiknoolajiyada oo Iiraan ay gacanta ku dhigayso. sidaas darteed Ruushka oo markaas ay isugu dhawaayeen ayuu mar walba ku cadaadinayay inay dib uga hakadaan gacansiinta Iiraan.
dowladda ruushku dheg jaraq uma siin rabitaanka maraykanka, bal wuxuu sii waday xoojinta mashruuca iiraan. dowladaha reer galbeedka oo maraykanku ugu horreeyo marna indhaha kama ay qaadin mashruuca nukliyarka iiraan. israa'iil oo uga walwal badnayd maraykanka mashruucan ayaa qudheedu waxay si adag ugu raad joogtay siraha ku gadaaman mashruuca nukliyarka iiraan. iiraaniyiintu waxay dhankooda ku dadaaleen inay la ciyaaraan oo ay ku howlgalaan qaab aan looga daba tegin oo aan loo gaarin waxyeelaynta mashruucooda. sidaas darteed iyagoo ka duruus qaadanaya dharbaaxadii ciraaq ku dhacday, tallaabadii ugu horraysay oo wehelisay ilaalinta amniga iyo sirta mashruucooda waxay ahayd inay dhisaan dhowr xarumood oo isku shaqahaya, si haddii mid loo duqeeyo ay u jiraan kuwo u badbaada oo beddel u noqda, ayna hawshooda ku sii wataan. bishii Agost sanadkii 2002 mucaaradka dalka Iiraan ayaa waxay bannaanka u soo saareen 2 xarumood oo dhismahoodu ay gabagaba yihiin. labadaas xarumood ayaa shaqadoodu tahay in laga dhaliyo tamarta nukliyarka. ogaalada iyo xogaha ay mucaaradka Iiraan ka shifeen waxaa ka mid ahaa magacyada injineerada u dhashay Iiraan ee ku howlan socodsiinta mashruuca. waxa kale oo ay xuseen dowladaha iyo shirkadaha shisheeye ee gacanta ka geysanaya hirgelinta mashruuca tamar bu'eedka Iiraan. inkastoo wakaaladda caalamiga ee tamarta nukliyarka IAEA International Atomic Energy ay dhaleeceysay arrinta, laakiinse markiiba Iiraan way inkirtay arrinkii. isla markaas waxay diideen inay booqdaan khubaro caalami ah goobaha la sheegay. intaas ayaan ku joojinayaa qaybtii 3 ee taxanaha xatooyadii qarniga. intaan ku kulmayno qaybta 4, sidaas iyo nabadgelyo.